soo dhawaada daawadayaal waxaan kala soo hadlayaa magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khaatumo oo ay ku sugan tahay xukuumadda Soomaaliya halkan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray sidoo kale inta badan golaha wasiirada ayaa ku sugan magaaladan oo qaarkoodna ra'iisul wasaaraha ay la socdeen qaarna ka soo hormareen kulamo ayaa durbaba hore ka bilowday oo ka soo bilowday madaxtooyada maamulka SSC Khaatumo kulankii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya goordhow ayuu soo dhamaaday wuxuuna la yeeshay garaadada deegaanada SSC Khaatumo oo kulan dheer oo arrimaha deegaanadan ay ku gorfeeyeen iyo xaaladda guud ee waddanka iyo mustaqbalka maamulkanba ay ku gorfeeyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dadkan uga mahad celiyay sida ay markaasi ugu go'an tahay midnimada Soomaaliya isagoo hoosta ka xariiqay in midnimada Soomaaliya nabadgelyada iyo xasiloonida dalka oo dhan ay dawladda Soomaaliya muhiimad siinayso sidoo kalena waxa uu garaadada uga mahad celiyay doorka ay ku leeyihiin nabadda deegaanadan iyo dawlad dhiska halkan ka soconaya ra'iisul wasaaraha ayaa u ballan qaaday garaadada in halkan oo ah magaalada Laascaanood iyo guud ahaan deegaanada maamulka SSC Khaatumo laga hirgelinayo hay'adaha dawladda ee muhiimka u ah dadkan si ay u helaan adeegyada ay uga baahan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya kulankan markii uu soo dhamaaday waxa la gudagalay qabanqaabada kulanka ay yeelanayaan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo haddaba ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kalena ah xarunta maamulka SSC Khaatumo goordhow waxa lagu wadaa in kulanka ay yeelanayaan golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya laga soo saaro bayaan isla markaana wasiiradu waxa ay ka shirayaan xaaladda deegaanadan halka maamulkan loo jiheynayo sidoo kale mashaariicda horumarineed ee la doonayo in halkan laga hirgeliyo wasaaradaha ka jawaabi kara baahiyaha ka jira deegaankan ee dawladda federaalka Soomaaliya wasiiradoodii ayaa gebi ahaanba ku sugan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool si guud magaalada Laascaanood xaaladeedu waa mid aad u wanaagsan tan iyo markaan imaanay iyo maalmihii la soo dhaafay maanta oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya yimidba kama dhicin wax shaqaaqa amni ah sidoo kale maba jirto wax dareen amni ah oo dadkani ay qabaan waa dhanka ammaanka ciidamada ammaanka ee maamulka SSC Khaatumo ayaa markaasi waajibkooda gudanaya oo meel kasta ku sugan sidoo kale ciidamada dawladda federaalka ayaa qayb ka ah kuwa ammaanka madaxda sugaya shacabka magaaladan ayaa si weyn u buux dhaafiyay maanta sida aad arkayseen tibinteena tooskaada kala socoteen garoonka magaalada Laascaanood oo la dhihi karo halkaas ayay magaalada dhanba u guurtay maanta wixii ka dambeeyay soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha waxa magaaladan ka bilowday roob aad u xoogan tan iyo markii aan tagnay waxa ka jirtay xaalad abaar ah gebi ahaanba hadda magaalada roob baa ka da'ay saacado badan socday waliba markii ra'iisul wasaaruhu ka soo degay ilaa iyo galabta socday sidoo kale tan iyo markii wafdiga ra'iisul wasaaraha uu yimid waxa bilowday kulamo isdaba joog ah oo qayb ah qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu dabcan ra'iisul wasaaruhu kulamadan la yeelanaya oo kii ugu dambeeyay hadda uu ra'iisul wasaaruhu la yeeshay garaadada deegaanada maamulka SSC Khaatumo bulshada deegaankan ayaa u dhagtaagaya hadba wixii ka soo baxaya kulamada socda ee shacabka magaalada ayaa kuwa aad u dhiiran oo wadaniyadu ku weyn tahay oo dareensiinaya dadka martida u yimid sida ay ugu faraxsan yihiin iyo dawladnimada Soomaaliya iyo midnimada ay gaartaba SSC Khaatumo ay saldhigga u noqotay dawladda Soomaaliyana ay ku tixgelisay muhiimadda gaar ahna lagu siiyay ayay aad uga mahadnaqayaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood haddii aad dhex marto waxa ka daaran gaadiidka makarafoonno heesaha wadaniga ah ay markaasi iyo kuwa dawladda Soomaaliya lagu mahad celinayaba sidoo kale boorarkii waaweynaa ayaa ku xardhan madaxda qaranka sawiradoodii lagu soo dhajiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood si guud shacabku waa kuwa xafladeynaya wadooyinka waaweyn ee qulqulaya oo maanta waliba wacdare laga dhigay magaalada Laascaanood garoonka ilaa iyo magaalada Laascaanood oo 10 kiiloomitir isku jira ayuu bulshadii dhoobnayd oo soo dhaweynta iyo calaamada qoyan ruuxayeen iyadoo roobku ku dul da'ayo ayay wax walba uga xiiso badnaayeen soo dhaweynta madaxda qaranka ee magaaladan timid dadka magaaladan soo dhaweynta ka wada ayaa isaga kala yimid guud ahaan deegaanada maamulka SSC Khaatumo gobolada Sool iyo Sanaag sidoo kale deegaanada Puntland magaalooyinka waaweyn ee Boosaaso iyo Garowe iyo Qardho
ayay dadka qaarkood ka yimaadeen halkani ayay wax alla wixii gaadiid iyo bulsho deegaanadaas jooga isugu yimaadeen si ay madaxda qaranka u soo dhaweeyaan saacadaha soo socda kulamadu way sii soconayaan ra'iisul wasaaruhuna wuu sii joogayaa sidoo kale waxaan ku dadaali doonaa oo telefishinka qaranka Soomaaliya aad ka daawan doontaan warbixino xiiso leh oo aan ugu kurgeli doono xaaladda bulshada deegaankan goobaha taariikhiga ah ee deegaanada SC Khaatumo ay ugu horeyso magaalada Laascaanood oo ay ku taalo xaruntii daraawiishta goobihii kale ee muhiimka ahaa iyo goobihii halganka iyo sida guud magaaladan oo ah magaalo cajiib ah oo dabcan ka soo kabatay xaalad adag sidoo kalena aad u koreysa dadkeeduna maal gashadeen kuna taala buuro dhexdood ayaan si guud warbixino ay kaga soo sameyn doonaa oo daawo doontaan sidoo kale kulamada socda natiijooyinkooda ayaan kugu soo gudbin doonaa warbixinadeena soo socda tan iyo kulantin dambe nabadgelyo waa Liibaan Lagu Cad oo in kala soo hadlaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool nabadgelyo